بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku faraxsanahay maanta inaan soo booqday xarunta adeega dhiigga ee Banaadir oo ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo isxilqaamay oo baahida jirta ee dhiig loo qabo iyo markay dareemeen kadib xaruntan u sameeyay si dadka dhiigga u baahan in lagu shubo oo si degdeg ah ugu baahan markiiba ay uga jawaabaan arintaas ayada ah ayagoo la kaashanaya ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada firfircoon dhiigaga shubaan marka runtii waa fikrad aad iyo aad u qaali oo fiican waxayna xiriir la leedahay nafta bini aadamka iyo badbaadinteeda diinteena islaamkuna waxay aad iyo aad ugu dadaashay nafta bini aadamka in la badbaadiyo oo la ilaaliyo bal waxyaabaha ugu muhiimsan ee diinta ay u soo degtay al-kulliyat al-khamsa ama shanta arrimood ee waaweyn ee diintu ay ilaaliso ayaa waxa kamid ah nafta in la ilaaliyo nafta marka siyaabo kala duwan ayaa loo ilaalin karaa xilliyada ay ugu adag tahay in la ilaaliyo ama la badbaadiyo u baahan tahay waa xilliga qofku uu dhiig u baahdo in lagu shubo oo u dhaxeeyo nolol iyo geeri qofkii marka ilaahay uu sabab uga dhigo inuu qofkaasi badbaado dhiig asaga uu bixiyo daraadiin uu ku badbaado waa sadaqa aad iyo aad weyn ajir aad badan uu ka helayo sida ilaahay quraanku uu ku leeyahay waman axyaaha fakaannama axya an-naasa jamiica qofkii naf badbaadiya naf nooleeya ayaa laga cabiray nooleynta ilaahay wax nooleeya waxna dilay laakiin insaanku sababtii insaankani ku sii noolaan lahaa ayuu ka qayb qaadanayaa marka qofkii ka qayb qaata sabab uu qof ku sii badbaadi karo ama uu ku noolaan karo oo sameeya inuu dhiig bixiyo wuxuu la mid yahay qofkaasi sidii asagoo bini aadamka oo dhan badbaadiyay wuxuuna halkaas ka kasbaday ajirkaas niyada suuban ama niyada fiican ee uu la imaaday oo uu leeyahay qofkaan una dhimanina intii tabartaada adigu wixii aad ku tari karto ku tar hadii uu qof marka ilaahay sababtiisa ku badbaadiyay niyadaas waxay la mid tahay bini aadamka oo dhan haday asagoo badbaadin kara ay soo maraana inuu badbaadin lahaa asagoo ay tusaale u tahay naftan uu hadda dhiiga u shubay ee uu badbaadiyay dhanka kale qofkii naf dila wuxuu la mid yahay si asoo dadka dhan wada dilay asaastaasna waxay tahay niyadaas xun ee qofkaas uu la imaaday ee qofkaan uu ku dilay yaa waxay tahay hadii uu awood u heli lahaa inuu bini aadamka oo dhan uu dilana sida midaan uu dilay oo kale ayuu u dili lahaa marka waxa la isku dhaafay wanaaga iyo niyada wanaagsan saasa nabi sallallahu alayhi wasallam niyatul mu'min khayru min amali qofka mu'minka niyadiisa ayaa ka khayr badan amalkiisa maxay yahay amalkiisu uu kooban yahay waxa uu jeclaan lahaa inuu fuliyana way badan tahay marka in bini aadamka oo dhan la badbaadiyo qofkii nafsadiisu ay sidaas jeceshahay ajirkaas inuu badbaadiyo oo kale ayaa loo qorayaa marka dhiiga waa sidaas sadaqadu way badan tahay sadaqada ugu fiican ee wax lagu sadaqaystana waa xaaladaas xarijka ama cariiriga ah qof bini aadam uu ku jiro markii qof ilaahay sabab uga dhigo inuu dhiigiisa intuu u shubo uu badbaadiyo waxa laga yaabaa dadka inayna aqoon fiican u lahayn dhiig bixinta faa'iido ay leedahay oo ama umaleeyeen haduu dhiiga bixiyo inuu asaga naftiisa dhiig yaraan ay ku dhacayso sida dhaqaatiirta iyo cilmiga uu tilmaameen ay tahay dhiigu inuu cusboonaysiin isku sameeyo marka qofkii markuu wax bixiyo kama nusqaamayso sida maalka caadiga ee xoolaha la bixiyo loo yiri ma naqasad sadaqatun min maal sadaqada maalka ma yarayso ayaa siyaasad la mid ah dhiigu sadaqada ayuu kamid yahay qof bixiyay dhiigi ku yaraan maayo oo soo cusboonaanaya bal caafimaad ayuu ka helaysaa dhaqaatiirtu ay tilmaameen diinta islaamkuna waxay uga dambaysaa takhasuska dad kale sida ay arinta u dhahaan ayay ku raacdaa oo fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun markuu ilaahay yiri markii laga hadlayo naf badbaadadeeda iyo wixii ku saabsan dhiig loo shubayo ahlu dhikriga waxa ka dadka bartay habka ay xubnuhu u shaqeeyaan iyo nolosha bini aadamka iyo sida ay tahay marka shariicaduna waxay dhiirigelinaysaa nafta in la ilaaliyo oo xifdhu nafsi ayaa la yiraahdaa marka wax aad u qiimo badan waxa mararka qaar kood dhacda maadaama bil ramadaan iyo ayna soo marayso oo bil ramadaan aan dhex galayno ramadaankii fadligiisa markii laga sheekeynaya qof xanuun dhiig in loogu shubo u baahan ama maamo umulaysa oo dhiig in lagu shubo u baahan ayaa dhici karta dadkii la socday marka inay sooman yihiin dhiigna loo baahday ayaa isqabanaysa markaasi marka waxa la rabaa inay ogaadaan waxyaabaha soonka buriya kuma jiro dhiiga in la bixiyo oo qofku dhiig uu ku deeqo ama uu ku tabarruco qofkii asagoo sooman ayuu dhiig bixin karaa soonkiisina uu sii wadan karaa marka dadka isbitaalada iyo marka la isu soo qayla dhaamiyo oo la yiraahdo dhiig ayaa loo baahan yahay dib la isugu dhigin waa la sooman yahay iyadoo loo malaynayo hadii dhiig la bixiyo inuu soonku jabaayo marka soonku waxyaabaha jabiye kama mid aha dhiiga lagu deeqo ee dadka la siiyo marka saas daraadeed waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada oo runtii aad u firfircoon xilliyada dadku ay dhibaataysan yihiin dadka ka qayb qaata fuudeynta dadka dhibaatada lagu hayo in ay dhiiga ay bixiyaan
inay xarunta soo booqdaan markii loo baahdana يعني إن أو لو باقو إن ديج نوع عسل لو باهي عدي ديجاس هيسا إن بحسه مساجدو أي قيب كان نقدان وعيقلين تبرشدو إن ديج ليس السيو أو ديج ليسكو تبرعه محير بين آدم إياه بدبادين هيا ومضاها يعني دباتوين كجلا أو مثلا أي دجال يكون فريهين حيابها علماء فتوضان أمهم سو حكم هذا إن ديج لو داقو marka wadankeena oo muddo badan yani dhiig bax uu ka socdo oo dadka ay dhiig aad ugu baahan yihiin waxa la rabaa in si degdeg looga soo jawaabo markii aan la maqlo yani baahi dhiigeed ayaa jira oo ama masaajidadu ay yiraahdaan dhiig noocaas ayaa loo baahan yahay aniga ay soo martay masaajidka khudbad aan ka akhriyo in dad isbitaal noo dhow ay dhiig u baahdeen oo qof yani dan yar ah oo dhiig u baahan oo cid u shubtan aan haysanin in ay yani masaajidka noogu soo qaylin dhiig noocaas loo baahan yahay oo khudbad markaan akhriyay tacliiqi ka bacdi aan ku yiri dhiig noocaas ayaa loo baahan yahay yaa dhiigaas noocaas leh oo maamadaasi yani ugu deeqaaya wiil dhalinyaro oo dadkii masaajidka ku tukaday kamid ayaa gacanta taagay labadii waa israaceen dadkii ka socday isbitaalka ee u raadinay dhiig iyo wiilkii dhiig ku deeqaay sidii ayaa dhiigii loogu shubay marka saas oo kale inay wada noqoto la isbadbaadiyo ayaa loo baahan yahay ajir badanna waa laga helayaa diinta islaamkuna aad ayay u dhiirigelinaysaa naf in la badbaadiyo qofka xataa xanuunsan waad aragteen oo jirada qaba haddii soon la joogo waxa loo leeyahay iska afuro inuu xanuunka ku sii bata ayaa la diidayaa oo naftiisa qaalinimadka ay qabta daraadeed ayaa ruknigii islaamka ee soomka ah mid kamid ah arkaan islaam kamid ah yaa waxa loo ogolaaday inuu raashin iska cuno iyadoo la fiirinayo naftiisa inay xanuunsan tahay oo haddii uu soomo xanuunkii uu ku sii badanayo ama dhibaato uu soo gaarayo marka intuu xanuunkaas u ahay haddii bishu kaga soo aado iska afur ayaa la leeyahay lama dhahay ilaa soon ayaa la joogaya ama ku xanuunsan in wad taas waxay daliil cad ay u tahay sida diinteena ay u ilaalinayso nafta bin aadamka qiimana agteeda uga fadhido marka saas loo ogaado dhiigana ha laga qayb qaato sidii loo bixin lahaa dhalinyarada arrintaas soo abaabushayna ilaahay khayr ha ka siiyo dhiig kasta oo la bixiyo oo ayagu ay sabab u ahaayeen qalqaaladiisana ajirkiisa ayay leeyihiin sida xadiidku ahaa addaalu cala alkhayri ka faacili qofkii khayr yani dadka tusiya sidii asagoo bixiyey oo kale ama sameeyey oo kale ayuu la mid yahay marka qofkii baahnaa iyo qofkii ku deeqaay oo aan is aqoonin dadka marka connection u sameeya ama isku xirad u sameeya oo sidaas naf bin aadam ku badbaadiya kii bixin ajirkiisu leeyahay qofkii lagu shubana badbaadida ayuu qaatay kii isku xirayna tusitaankaas uu tusay baahida qabay iyo kii deeqad bixinayay ajir ayuu ka dhexelayaa marka shaqo laga shaqeeyo shaqooyinka ugu fiican ayay ka mid tahay qofka ilaahay uu waafajiyo inuu ka shaqeeyo dadka inuu xanuunka iyo kurbada haysa inuu qayb ka faydo nabigana wuxuu sallallahu alayhi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah qofkii qof muslim ah ka faydo qof mu'mina ka fayda kurba ku taagnay ilaahay asna maanta qiyaama iyo kurbadaas ka faydaya marka dhiig loo baahday waa kurba weyn oo qofkii dhakhtarkii uu leeyahay hadaan daqiiqadahaas laga soo gaarsiinin naftu way ka baxaysaa kurba ka daran ma jirto qofkii ka soo jawaaba marka oo intuu dhiigii shubo bukaankii lagu shubo oo indhaha uu kala qaado oo fiicnaado oo caafimaadkiisa ilaahay u soo celiyo qofkaasi kurbada uu ka fayday asna ilaahay maalinta qiyaamaha ayuu ka faydaya marka laga wada qayb qaato aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مدة الصومالية رمضان الكريم waxaan halkan uga hadlaynaa faa'iido ay leedahay dhiigdeeqista runtii lama soo koobi karo dhiigdeeqista faa'iido badan ku sugan qofka dhalinyarada ah ama qofka dhiigbixiyaha ah wuxuu ka helayaa caafimaad unugyo cusub oo jirkiisa ay soo saartaan oo faa'iido badan uga jirto wasaqdii irontii badneed uu iska saarayna asagana uu ka helayo caafimaad walaalkiisa uu ku badbaadiyena ay tahay ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin waxaan rabaa dhalinyarada inaan uga faa'iideyno barnaamijkan haddeertan aan wadno inay xarunta u furan tahay xarun bulsho ay tahay in dhalinyarada ay dhiig ku deeqaan walaalahooda xanuunsan oo runtii ku sugan isbitaalada magaalada muqdisho aan haddii la helin qof dhiig deeqa ah ama dhiig bixiya ah ay adag tahay in cunuga ama walaalka xanuunsan in la badbaadiyo haddii aysan la helin dhalinyaradaas inay soo gaaraan xarumaha caafimaadka ah ay qayb ka tahay xarunteena Banaadir Blood Service ay adkaanayso inaan wada badbaadino bulshadeennii waxaan rabaa dhalinyarada dhahaya noo sheeg ama noo soo wac maalinta ay jirto baahidaas dhiigga ah oo markaan wacnana ay tahay ma joogi waa xanuunsanahay waa maqanahay oo kaleete walaal waxaan kuu sheegaynaa xarunta waxay shaqaysaa 24 saac waa soo gaari kartaa waqtiga jaanis haysid annagii aan qafaal qaadin inaan gaarsiino baahida walaalka haysta
oo kurbada ay ku taagan tahay inaan gaarsiino adeega dhiiggaas baahida ka jirta haddaadan gaari karin maanta aad dhiig shubi karin bariyaa shubi kartaa haddaad barina soo gaartana annagana waa sii gaarsiinayna maalinta kale marka waxaan rabnaa dhalinyarada inay xarunta soo gaaraan ay noqdaan dhiig bixiyaal annagana waxaan u taagannahay inaan kurbada ka faydno walaalkeena xanuunsan oo dhiig la'aanta haysato yaan la dhihin baahidaas markay jirtaan ka jawaabaya yaan la dhihin maxay aheeday dhiig ma shubi kari yaan la dhihin maxaa lahay ma awoodo annaga waxaan diyaar u nahay inaan wax walba talo ku siino inaan ka wacyigelino barnaamijkaas iyo waxyaabo u baahan tahay xarunteena waxay ku taalaa Taleex fadlan walaal macaan soo gaar Taleex halkaana dhiig ku deeq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu